السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي هو محمود وفاحرسي وحان سلام يا دمان مدة الصومالية من الجوغان قارهان رير مريكان قولك مينيسوتا waxaan ku noolahay gobolka Minnesota caawa waxaan rabaa inaan la wadaago qiso aad iyo aad u xanuun badan cid walbo islaam ruux walbo Soomaali ana tusaale ugu filan ama cibri qaadasho cid walbo daalim rabta in ruux bil aadan dulmisana sidoo kale inay u noqoto tusaale iyo cashi wax laga barto iyo dadka maxkamadaha isku dacweeyo ama u maleynayo Mareykan inay cadaalad yaalin iyo cid walbo aaminsan haday single mother noqotay single father hadduu noqday dadka ilmaha isku haysto dadka isdulmiyo waxa weeye maxkamadii ugu xumeed ebid dad Soomaaliya dhaxmarto aniga iyo xaaskii gabar xaaskiyaana dhaxmartay ayadoona ku soo dhamaatay aad iyo aad u weyn oo raacday gabadhii waxaan u sheegayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota in ay tahay wadankani cadaaladdu ay leegtahay cirka ayna ka yar tahay wax musuqmaasuqa meel yar jir uu ka baxo marka waxaan doonayaa reeraha dhisan inay tusaale ku qaataan kuwa iskhilaafaya isdacweeyo inay tusaale ku qaataan cid walbo madluum ana waxaan u rajeynayaa in mataqaanaa samirka Allah wallahu asa binu ilaahi leeyahay ruux walbo la dulmiyay gabar ha noqdo nin ha noqdo in mataqaanaa dadku ay saabirin noqdaan ilaahina mataqaanaa dadkaasi wallahi yuhibbul muhsinin ilaahi quraan ku sheegaya waxaan rabaa in Allah hadlo dadka kale ee mudabdabka dadku isku diro إلهي القرآن يقول يا الذين يبخلون الناس ويأمرون بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وقد آتينا وأعتدنا لهم عذابا مهينا سورة النساء وحان دونيا marka qisadan oo kooban oo mataqaanay sida Ilaahay uu yahay wixii qabsaday inaan iniga sheekeeyo waxaan imaaday wadanka Mareykanka 2017kii on ku cusbaa laba bil ama bil saddex wiil ka bacdi baan gabar Soomaaliyeed ilmo wataan guursanay aad iyo soo dhaweysay gabar aad iyo aad u fiican ahayd xaaskayga noqotay oo ii qaaday wiilka horeeyay ka bacdi walici aniga aan iska tagay shaqo gobolka la aaday waxa dhacday in markii ka bacdi islaan kale oo isnaqaan jiray South Africa ee waxaan jirin oo sheekaysay sheeko un ku saabsan wax un saqajaanimo afkayga hadda aan ka soo bixi karin gabadhi xaaskayga way soo wacday ka bacdi waxaan ku dhahay walaal qofkaasi waxaan dhaxmaray ma jiro arintii meel oo weyn bay gaartay tax message cid walba loo diray way soo wacday maanta dambe ii dhaaray ugu tiri waan u dhaartay caadi bay iska ahayd ka bacdi waxaa dhacday in ay bishii sideedaad ay telefoonkeeda aan blogareeyay ka bacdina ay labadii cunug macallakii caloosheeda ku jiray anii dhalay doonto oo mataana marka ahaayeen iyo gabadheedii oo 7 jir ah wiilkeedu 9 jir ah intuba ay dacwo igu qortay oo booliska ay tagtay ayna report gareysay kiis oo wuxuma abid ka dhaco Mareykan 208 sano ka badan buu dhisan yahay cadaaladda wadankan galayna kiiskaasna galay number 1 noqday kiiska oo wuxuma abid la record gareeya ama accusation ruux lagu sameeyay mid ku xuma al-adlu min Allah ilaahi ba cadaalad ah ilaahi baana cadaalad sax ay siiyay nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam waxa lagu yiri وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. إن عدالته معنيه ما كان الله هذي أهل الإنجيل كواتك النبي عيسى كحكم وحي إلهي كوسود الجي دنا إن عدالته نصات روحنا عدالة كحكم سمين إننا وظالم أما فاسق. dadkaasi ayagoo kristaan ayagoo mataqaanay dad aanu kala najadnahay kula mudnahay iyo waxay mareen cadaalad ama ay sameeyeen kiiska marka la qoray intaan maqnaa oo aad iyo aad ugu mahadcelinayo ninkii reportka qoray booliski ee county ciyaalkii mataqaanaa kuwa u dooda MCRC la dhaho MCR la dhaho iyo dhamaan ummadii ka qayb qaadatay expert noqotay cid walba ayagoona hal yar wax walba ay ku hadashay gabadha xaaskay ilmaheeda gooni loo qoray saacaday ku hadleen wax walbana meel loogu qoray ka bacdina la soo qaado waxaad ku hadashay waxaan nagu tiri goonin loo kala qoray fiidoonin laga duubay marka waxaan doonayaa muhiimadda ah inaan fiidoo man soo duubo ma aha inaan gabadha walaashay xaaskayga ah aan ceebaysto ma ahan inaan mataqaanaa aan ka dabato waxay ugu samaysay anigoo cafiyay anoo gacmaha ka xiran ولله عليا سوء عليا كان لله كلها والعفي ساعة تولينا لما عفن كيس كي وحقصنا ما إلا ترى اللي عادو أنا هقوليستو محكمة بقول كي وبقول داينين كان مظلوم ويوعى قفتم بعد الدرنب وحنا وما كقصة أقوبا واحد عي
wax akhlaaq xumaa wax diinteena ku xun wax dhaqankeena ku xun waxaan doonayaa anoona ka xishoonaynin wax walbo la qoray inaan halka idinku sheego anoonan fadeexeen iyo cabaareen iga heen ninka cabaareysan ee fadeexaysan ama ceebaysan waa aniga gabadhaasna ma kala go'ayno ma taqaanaa ilma ii haysaa weligaana ma kala go'ayno number 1 waxaana cafin doonin oonan dadkan daalimiinta ee gabadha u sheekeeyay ama cid walba oo kiiska ku lug lahayd oo la diyaarisay dacwadaas wallahi ma cafinayo waan isgaranayaa magacyadooda waxa ma sheegayo waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan walaaladeydii muslimiinta ahaa ama qabiilkaygii gaar ahaan reer waasguulad reer waas khalaf wanaagii lii sameeyey dhammaan ogaadeen oo idil waan u mahadcelinayaa meel walbay joogaan ilaa Nebraska ilaa iyo Minnesota dal iyo dibad inta iisoo duceysay waan u mahadcelinayaa 100% ilaahay khayr ha siiyo masaajidada sidoo kale waxaan kaloo u mahadcelinayaa lawyerkayga Jay Matthew Mankey Julie Heidi iyo dhammaan Estin iyo expertkayga Dr. Mukori iyo Dr. Reed dadkaasoo cadaalad fiican ii sameeyey almost 6 ruux bay haayeen waan u mahadcelinayaa 100% xorriyadii dib igu soo celiyeen cadaaladana banaanka soo dhigeen kiiskani wuxuu ku bilaabanayaa sidan qisadan soo socoto gabadhani markay walacday waan ka tagay markaan ka tagay inta hore inuu sheegay gabadhii dacwo waxay ka bilowday inay gabadheedii yareed ay sii qaadato jirka ay booliiska geysay oo ay leedahay ninkaas ayadoo fadhiga wada fadhiyo awradiisu saaray dhabtiisa bay aabad ku ciyaaraysay dhabtiisu saaray gabadhii way carartay masoo soo xirtay wuxuu dhahay amal ma sheegi kartid kabacdi maalinka labaad sidoo kale sariirta hooyadeed waxay leedahay gabadha wax yar wax weyn oo adag ba ay taabtay mar waxay leedahay sariirta walaalkay mar sariirteeda 3 shay oo kala duwan bay u tahay u sheegtay intay markaa ciyaalka tababaraysay ayadii dadkii la joogay maamo weyn oo dariskeeda ayaa u maado ku dhahay walaal ruux muslim oo islaano walaalka waliba in maadeer ay tahay gabadhan waliba gabar ehel aan nahay weey yaa waxaan ku dacweynaysaa alla ka baq jooji waxan islaantii baa islaamka lagu warantay gabadhii waa la sii qaaday waxaa la geeyey meesha corner house ee ciyaalka looga qaaday fiidiyowga gabadhii markii meesha la geeyey waa la wareystay tabtii hooyada u sheegtay bay sheegtay waxaa la waxani maxaa ku baray maxaa ku ogeysiiyey xageed ku aragtay weligaa ma aragtay waxay tiri yes my uncle adeerkay abtigay oo film galma daawanayo ayaan arkay dhowr mar hooyadiina oo u sheegay wax way ka qaban weyday abtigeed oo wadanka la joogo guriga ku nool yahay magac kale wadan ku jooga abtigeeda meesha soo galay alcadlu min allah taasoo dulamka ah meeshii aniga laga rabay maadaama uu maqnahay waxay tiri abtigay baa filimkani aan la daawaday abtigii lama wareysanin lama raadin dib looma dabagelin sidii baa loo xiray kabacdi wiilkeedii oo 9 jira bay sii qaaday wiil aad iyo aad u wanaagsana wiilkii waxay geysay booliiska waa 7 bilood kabacdi markaan sii maqnahay wiilkii waxay ka bilowday wiilkii fadhigu fadhiyay wuu shumiyey wuu cararay mususu isku soo xiray ilaa aan shaqada ka soo baxayay mususu ku jiray wiilkii sidoo kale waa la sii qaaday waxaa la geeyay MCRC meesha ciyaalka ugu looga doodo filim baa laga duubay 14 daqiiqo wiilkii wuxuu yiri waligay ninkaasi imana taaban wax xumaan ana iguma sameyn nicid kala jirta la guriga aad ka cabsanayso mayu yiri ninkaani wanaagsan buu ahaa waliga xumaan iguma sameyn waxay ku tiri booliiska iyo MCRC-ga inaan wiilkan mususu ku jiray waxa marka loo soco shumiska kaliya ma ayadu waxay wadaa jaal abuse am cungu abuse galay mususu ku jira intaan shaqada ka soo baxay aniga habeen baa shaqeynaa ayada habeen bay shaqeynaysaa labadu waa la soo ogaaday marka walay amusay waa la soo wacay waxa lagu dhahay qoftaas ciyaalkeedii Minnesota ma imaan Minnesota ilaa la soo qabto waxa dhacday in maxkamad la sameeyo maxkamadda ma joognaani ayada loo diray kabacdi waa la soo qabtay waxa la keenay Minnesota 12 bilood baan ku xirnaa maalinkii dambe waxaa loo dareeray juurigii maalinkii la joogay waxaa noqotay inay noqoto arrintii DNA anigii ilmahaygi iska kana qaado walaalkeed meesha uu soo galo walaalkeed magac kale meesha uu ku joogo arrintii marka waxay noqotay arrin qabiil bay u noqotay oo irinteedii dadka ehelkeeda waxay ku dhaheen annagu wax kiiska naga dhexeeyo
وأنا إسلام تام ولكن أرنتي على فرق الشن لا يكون حول مرك عنيا أرنتني واحد كليو لديه كرمانته والسمين كان عمدن بيجو قلي وجبنا ولكن نكمل قوم معنا مصر حرسي إن حين نقطتين كين الجدي دولة دي واحد كلي ما كتاعي كسارع وحاول وعنيا لا يرين تي كسبادي كل واحد أنا قبصنا ولكن ما دام جبنا أي شكتي إن الفيلم قال ما الله دعوتي نكمل إن دولة دي نورمال محكمة دي بيقولوا كان مالك الدم الله يركيه وحسن ميي حكاني مجلس السحلة وضم كجو حلو صاغر يمشوا كنورياي تلفون كسالو رادي ولا ساقطي خبرت الصدوه ديس عيالك الصدوه أو دنا أباها وعيال كني للجوين بعيدا على كاني ما دام الله شك سنة إن عيال كني أي صوته برتي أي ربطو أني حاسكي إني كالجيسو أرنتي لويركي وآموسي وحال السمي محكمة دي بعدني على جسو قلي سلامتي يو ويلكي كبار الله دشي كيس وحو الصعود وحلا سهرديو لويركي حسوب هي بنانكا ويلكي انتو نوصف رزمان كود عني كان يوانيكي بوليسكي سوق قبتين ورقد لوكي صدوه بنانكي كوسو كيسا يلكي وانا ورستي محاد عيب على قدهي هذه كورا محاد أحمر ولي وحكم الصمي يلكي إلين جبح نحدن أن لويركي محكمة دي سانتي وحيد حاكمياش وحيدين حال ساعة أنا نصير لويركي وحبناك صادق الدولة وحي رادينا إن حال ساعة ممكن وهالكين يهاي وبيلكينا وجوه محكمة دي والبوليس كانن سانتي نسيو قال صدق أي بوليس كانن سانتي وحيد محاكمين دي كل وحيدين حال ساعة أنا نصير الشركة دي وحيكون معطي إن عني يقول شيء راعده ترايح كنا أنسأو بوليستي العدل من الله الحمد لله رب العالمين إلهي محدث كله قصة waxaan doonayaa in mataqaana cimriqaash ay noqoto aysan noqonin mid la isku fadhiis waxaan rabaa markii aan la hadlo dadka dhaalimiinta ah kuwa dadku isku diro mudabdabiina bayna dalika la ilaha illa huwa wa la ilaha illa kuwa oo ilaahay ku sheegay fi daraki asfali min an-nar oo dadka mataqaana dabaqada hoos ku noolaan doona munaafiqiinta ah horta waxaan leeyahay joojiya tan kale كيس كان عيد البوكا قيب قاعدتي عيد البوكا حرجي كفرحدي وأنا عارفينيا إلهينا أينا عافيس هورسان جوّد ولا شيء حاس كي أنا عهد إن أيضا السوق المحلي إلهي وطبط كيمتو إن إلهي أبورتي المهي أنا كو أبورينا هاوصو نقطة دمداف هورسطو وحان كانوا رباطات إنا أشيغو فيسبوك أنكو أركي جوّد أنا أيضا إلا صورا فيسبوك السوق لنا وحان رباطات إنا كسوحو جوّد حاس كي معها وإلمهي هو يدود وهران قال تغني مانك كيسن قرطان يعني فري وهذا هو حاسكي معهن وحنا يلا شيء شرعين أو لسي أفلق الدين أما وحبل لقى فائدة من الله بك عفي سنتهي لكن عدل بود دول من لقى شيء ولقي مع فينايو وبالله التوفيق وحنير الجينا يا إن تعرفان فيديو وان إن إيش كريسان وعدل بود متقنعين سومالي إجارته سفي عن الله دعوة وحنا يكسن لا يقاطو وحنا لسه ضرب جريو مهمة دوين وحوي قيسس كلا الدلايو لا كلا طوريو لا كلا قيمة وحفة إذا ملا نريكن عداد باطل قبلها أميسن إن روح لو أبو يسيرين كرو أنا يتصارع بوقته عدول أنت سانكو حرنا بونكي وحوها صدق على بقولكم وحاوي وحول بولا سمي عدو فرتالوي مركب دمبه وحلوق أنا بحي شرع مريكن عبت عدة عدنا لكن محكمة وجو وجاين إذا البوكيسن كور قطوع كل ماضي عبيو مالك لقاوية عبت الله وحنوش اللي قبلها الصومالي قارهان سنجل مادر وحاوي محايدي لها إلهي كبقى لكن كينا صوبان إيو وناقة ذاتك الصومالية قانو ماليان لغدعين وبالله التوفيق خير باني رجي انت حنبان كهضايا انت في عن كما هضايو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله